8 items. Under 8 items. 7 suffer out. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وصلى اللهم على آله وصحبه وسلم وبعد سكول كان وسكول بلارن وكل ديجان كوردن يوحي مقالة ده ديجان كربطة در يدي سويحي شوكوردن يكفى يدستان مددرنا شقيني يعني كل اللي بديكم أكوريي أو حل جودي جري ميلان وابا هو ديجان كاودسين يا walaalaha kale qurba jooga hase yeeshee markii labadii kun ay gaadhay waxa la dhisay qolalkan ugu faraha badan ee jira meesha oo ilaa waxa la noo dhisay store iyo office-ka aan dhex joogno hadda iyo 4 galaas oo ardayda dugsiga hoose ay ku dhiganayaan asaasiya inta kadibna mar labaad bay DRC ay isku dayday in ay dhisto iyadna laba qol ay ku soo kordhisay kadibna waxa lagu kordhiyay 2008 u dambeyn all fashion laba qol dhistay kaas waa dhismaha dugsiga iyo qaabka uu soo tukubay amba uu soo socday haddana baahidii dugsigu ma ay dhamaanin waa la arkayaa oo ka muuqda dugsiga dhexdiisa ardaydii oo ku dhiganaysa gidaarada amba geedaha hoostooda taasuna waxay markhaati ka tahay in loo leeyahay wali fasallo dugsiga arday badan baa joogta tayadooduna ay sareyso waa ayna soo kordhayaan sanadba sanadka ka dambeeya waxaa tusaale ahaan ugu filan sanadkii hore in la qoray arday 100 ku dhow sanadkana la qoray 109 arday in ka badan iyadoo waliba meel gaar ah oo deegaanka iyo magaalada yar ka mid ah oo dadkii soo barakacay ee deegaanka ay si gaar ah loo hayo oo arday fara badan meel gaar ah oo waaba iyagana lagu hayo oo wax lagu baro oo aan dugsiga la soo qayb galin sidaa darteed waxa sababay oran karnaa fasalada nagu yal marka codsiga iyaga ugu weyn uu yahay in qolalka dugsiga la noo kordhiyo dayrka oo isaguna ka sii muhiimsan oo noqda aad u muhiim ah oo maqan tahay waayo dugsiga dayr la'aan waa dhib weeyaan cid waalan baa soo gali karaysa dhibaato kasta ka dhici karaysa kantaroorka xataa lumaya sidaa darteed waxa kaloo si aad u codsanaynaa in la noo dhiso aan heli karno dugsiga dayr anfacaad dadweynaha iyo ardaydaba amnigana ilaaliya waxa kaloo sidaas oo kale xus mudan iyaduna muhiim ah oo dugsigu u baahan yahay qalabkii dugsiga office-ka oo isaguna muhiim ah computer ma dhex yaallo wax lagu qoro ardayda waxaan dhixoolin electronic oo dhan dhamaantii waxaan dhixoolin kii ardayda wax loogu sawirayay amba copy loonanayay oo waraaqa ardayda loogu badin karo kale dugsiga baahiya fara badan ayaa buu leeyahay waxaan codsanaynaa wala dawladda iyo hay'adka iyo qurba jooga kale deegaanka u dhashay walaalaha dhamaantood in ay ka caawin karaan waxay ka caawin karaan oo ay dugsiga u qaban karaan waayo waa meesha ugu muhiimsan ee ummadan anfacadeeda ay ka soo socoto jiilka mustaqbalka ee la wada rajaynayana amba dadka mustaqbalka ee la rajaynaya halka uu ka soo baxayo weeyaan kulay warbixinteeda intaas aan ku soo koobi lahaa dugsigana waa la arkayaa waxa ka muuqda waxaan ku wareejinayaa barayaasha kamida bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ani magacaygu waxa weeyaan Cabdiraxmaan Ali Tukaale waxaana ka mid ahay barayaasha dugsiga Garbadar ayaan ka mid ahay dugsigan waxa uu shaqeeyaa muddo aad u dheer imikana wuxuu marayaa meel wanaagsan amaalkii ugu fiicneed baan oran karaa inkastoo ay noloshu sideedaba dhameystirmin haddana waxbarashadu si fiican bay kor ugu kacday imika waxaa kor u kacday oo weliba ku soo biiray dugsiga oo u baahan intii hore way ka yar ballaaratay waxaana ku soo biiray qaxootiga ayaa ku soo biiray oo isna keenay iyaal aad u fara badan ay ku soo biireen oo naga yar baaxad weyn aad moodeen naga baaxad badan yihiinna dad u baahan waxbarashada oo haddii wax lagu shubo sideeda u qaadanaya marka fursadooda haddii ay loo helo na ay ka faa'iideysan lahaayeen iyaguna taasi way jirtaa dugsigu si fiican buu imika u fiican yahay macallimiinta wuxuuna ka kooban yahay dugsigani ilaa standard 8 ayuu ka kooban yahay galaaska 8aad macallimiintu waa ilaa 12 macallin baa joogta si wanaagsanna waa ay u socotaa shaqadoodu cid kasta oo danaynaysa waxbarashada caalamiga oo dhan danaynaysana waxaan oran lahayn sidii aad wax nooga caawin kartaan inaad wax nagala qabataan cid kasta bilaadanimada ku shaqaysa oo dadnimo ku shaqaysa oo diin ku shaqaysa ba waxaan u sheegaynaa cid kasta in ay naga caawiyaan waxbarashadu kulay laameedu waa fara badan yihiin qof kasta waxbarashadii
kor in loo qaado ayaad moodaa maanta caalamka waxa keliya hatee wax lagu qaban karaa waxaa weeyaan tacliim wa tacalam waa nidaamka keliya hatee ee ugu fudud ee ummaddu maanta kor ugu kacayso waxna isku fahmayso marka waxaan odhan lahayn qurba joogta kuwa nala jooga iyo kuwa naga maqanba waxa aan leenahay in aad wax nala qabataan ayaan maanta idinka codsanaynaa si dadnimo leh oo walaaltinimo ku dheehan tahay wixii aad hore usoo qabateenna waad ku mahadsantihiin xagga ilaahayna waad ka heli doontaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هرتا قبل كل شيء إلهي با مهدله إله ما أنت النبض نقول كياني ورقي ديكتا قربض دربان ما أنت جوغنا وحنا ندح جوغنا إسكول كي وقوينا مقالة ما شاء الله إسكول كو وقوينا دي سيدان كو أغين أرضيدنا وي بدتي هدي أي أرضي بدتي إسكول كينا إن لغو دراي سيدي أي إقرأ كغتكتي haddana wuxuu u baahan yahay intaa in leeg buu u baahan yahay maanta waxa ugu weyn ee indhaha uu qabanaya waxa weeyaan arday dabadda joogta oo meel bannaana wax loogu dhigayo marka taasi baahida ugu weyn weeyaan baan anigu isleeyahay taasi iyadoo baahidii tahay haddana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida ay wax u socdaan iyo macallimiintu sida u faraxsan yihiin iyo ardaydu sida u faraxsan tahay iyo dadku sida uga mabsuud yihiin waxbarashada marka waxaan leeyahay qof kasta oo danaynaya waxbarashada amba gobolkan amba degmadan jooga oo imalqaya amba hadalkayga dhagaysan doona insha Allah in taageeradiisa laga rabaa gacmo jir bay wax ku goyn karaan biidnillah marka waxaan leenahay iskoolkani taageero badan buu u baahan yahay dadka wada ee macallimiinta ay ugu horeysana khayr Allah ka siiyo waayo wax weeyaan macallinku waa warshadii wax soo saaraysay waxaan weliba aad iyo aad yani ay mahad gaar ay u leeyihiin ninka macallinka ah ee jooga meel baadiye ah la keenay ee meesha baadiyaha dadkiisii u dhabar adaygay ee doonaya inuu ubadkiisa halkaa wax ku baro waayo macallinku markuu magaalo joogo dhaqaaluu u baahan yahay wax kaluu soo kordhisan karaa brefaad buu dhigan karaa waxba kaluu samaysan karaa laakiin meel baadiye ah oo miyi iyo magaalo oona waxba ka soo gelay ninka u dhawaar adayga horta aad buu mahadsan yahay isagana waxa le waa waajib saaran buu gudanayaa biidnillah iyaguna sidaa ugu dhawaar adaygaan dadkoodana waxa u taraan baan odhan lahayn dadka dibadda joogana waxaan leenahay war soo taageera walaalihiin maanta way nii baahan yihiin meel kastaba aad joogtaani intaasaan kaga baxyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam marka hore waa mahadsan yihiin maamulaha dugsiga macallimiinta barayaasha dugsigan garbadadar sida ay runtii uga hadleen meeshani waa goob muhiim ah oo ummadda mustaqbalkeedii ah u baahanna in runtii la isgarab taago laguna dadaalo sidii wax loo tari lahaa maxaa yeelay jiilka oo maanta soo baxaya ee wax la barayay waa in ka mustaqbalka ummaddan hogaamin lahaa ee wax tari lahaa ee xagga khayrka iyo wanaagga iyo marka waxa weeyaan ka horumari lahaa saa darteed iskuulku lafdhabar buu u yahay marka ummadda iyo waxbarashadu baahiyaasha marka ay soo gudbiyeen barayaasha iyo maamulaha iyo barayaasha oo ah in iskuulkan runtii waxyaalaadka asaasiyaadka ugu muhiimsan sida dayrka oo runtii sida ay sheegeen dhib badan ku keeni kareen wax lagala qabto khaasatan marka waxa weeyaan iskuulka loo sameeyo dayrkaasi wuxuu sameynayaa inuu ka ilaaliyo kii waalaa hawayaankii dhib badan buu ku hayaa marka arrintaasi anigu waxaan odhan lahaa hoosta ayaan ka xariiqi lahaa in wax la taro oo arrinta aad iyo aad la isugu hawlo wixii wax ka tari kale waana sadaqa jaariya ninkii wax ku darsada ilaahay baa markaa subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu ninka waxbara dadka waxbara khayrukum yani waxa weyn tacliintu khayr badan bay leedahay marka waxaan odhan lahaa ilaahay marka waxaan hala garab galo nimanka runtii dadaalaya ee maamulayaasha iyo macallimiintana waxaan leeyahay runtii sabra oo iyo kuwa markaa xataa iyo wax amnigooda ilaalinaya ee markaa wax weeyaan hadii habeen markaa ilaalinaya amniga iskoolka ee wax weyn ilaalinaya sabra oo markaa runtii u adkaysta dadkiinii iyo ummadiinii iyo mustaqbal baad dhisaysaan ilaahayna idinka abaalmariyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما توحى جونا قرب الدر ووقتي الصبح نبعه سكولكي وجونا دبسي وصل دحى قرب الدر runtii waa meel lagu farxo oo waxaad arkaysaa soo saarka
waxa la soo saaro waxa ugu wanaagsan ummad wanaagsan oo caqli fiican oo ilaahiga taqaana oo mustaqbalka ummadda dadkii u adeeg lahaa ah yani waa wax ugu wanaagsan dadku waxa soo saaraan product kale oo ka duwan sida biyo iyo raashin iyo laakiin insaan in wax la gashado yaa ugu wanaagsan adduunka ilaahayna waxa weeye wixii u horiyo abuur qalam buu ahaa qur-aankana waxaa lagu bilaabay iqra marka waxaad dareemaysaa cilmigu inuu yahay aasaaska nolosha yabaha maadka kolley lina weydiinayo anugu haddaan farta taagaya waxa anaa horna insha allah yabaha saddan ka qayb qaadanaya si life on spot baahiduna insha allah waxay wax weyn maa runtii wax la isweydiinayo dadkana waxaa caawiya dad caddaan runtii hadda waxaan arkaya bugaagta unicef iyo wax la halmaala marka annagoo dhulkii u dhalanay oo dadkaygiya inaan horumadu noqono insha allahu tacaala intaas kusoo gabagabanayaa waxaan kusoo dhaweynayaa qof kasta oo wax la baxana waa sadaqa jaariya adinba ku maqan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahuma salli calaa maxamed waxaa la yidhaha maxamed cali xaaji waxaan ahay guddida waxbarashada dugsiga hodanka beere waxaanu aasaasnay sanadkan bishii labaad ayaanu aasaasnay dugsigani wallaahi aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa ciddana baraarujisay iyo cidda wax noo qabatay annana indhaan aad ugu kala qaadnay iyadoo intaan nabadii ka dambaysay 24 sannadood ay kow noo tahay waxqabad waxbarasho ay kow noo tahay iyo hanaqaad waxaan ugu mahadnaqaynaa gurmadka tolka loo yimiday na baraarujiyey hantidoodii iyo jaahilnimadii aan qabnay naga saaray waxaanu codsanaynaa inaan sidaas oo kale hanaqaad hore aan u soconno aanan hami gelinno waxaa lanoo qabtay bartaa ay tahayna an lanoo dhiso anan wax dhexeeya wax turjuna wax meel kala ah midnaba ahayn annaguna aan ka muujinno halkaa ay dhibaatadaanu kaga codsanayno iyaguna waxa ay noo hidin karaan halkaa dhibaatadu ay taalle ee ruugta ah ay noogu keenaan waayo iyadoo dowladda somalilan annaan weli wax gacan qabadeenaan kahayn 24 saacadood ee somalilan ay janowday iyo hay-adda dawliga annaan kahayno wax qabad hadday beer tahay iyo hadday waxbarasho tahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda beeraha iyo maamulka somalilan midnaba kama hayno waxaanu codsanaynaa in sidii lana soo dayo sababtaa dhibaatada naga farabadatay beeraha daad baa naga hantiyey haddii biilikay abaarana way nagu dhaceen dhibaato foolxu baanu qabnaa allana allaanu gargaar ka sugaynaa calaykum ciyaalow meeshan magaceed baa la yidhaha halkan maxaa la yidhaha iskoolka aad maanta dhiganaysid magacii ya hodan gabdheere maxaa la yidhaha hodan gabdheere waan gartay yay ninka ugu weyn baan doonayaa inuu hadlo mise bilood baad dhiganaysid iskoolka sideed bilood baad dhiganaysid maxaad dhigataa maxaa laydin dhigaa حساب رفعنا برضه إنجليش عربي لا حساب إيوه عربي وصومالي إيوه ساينس بولشو أيوه عربي إنجليش أيوه ما شاء الله sidee kula tahay markaa may adag tahay may kuga adag tahay may caadiga ma way fiican wanaagsan fiicanta waxba kuguma adag maxaad qabataa markaa iskool ka tagto kadib maxaad qabataa دراعنا غير هذا قبل إنه برليباتي وهالكنا دقنتي وحكى لهم حسن يسا مركز سكول كبح أنا بيرام خشقنا وحكى لهم غوي برشاد بس السنة عندنا كبد معيارته كبد ما يقول معي ما رضا يلا رضا أرتدي أجد كوردي كهرباء بنام بتاخد اليوم مش كيلومتر ده ولا دي لا بقول متى حصل ليلة
marka waxaa la rabaa dhulkan dadka ku nool waxay ku fiican yihiin ciyaaraha kubadda kuma fiicna soomaalida eritariga etoobiyaanka jibuutiyaanka orodada kuma fiicna inagu laakiin waxaan ku fiican kubadda kuma fiicin laakiin orodkay ku fiican yihiin maaritoonka half nus maaritoonka 400 5,000 10,000 waxaas bay record igeeyaan marka haddaad orodaan oo intiina waaweyn isku tartaan subaxeed orodaan oo 300 kilomitir orodaan haddana ka soo noqotaan sanadka dambe waxaad ku ordi doonteen New York iyo Washington هذا المقعة حواي خان حسن حقيقة دقنتي مرانا دقنتي مسعي بلاد دقنتي سكار سديد بلاد قرآن كما تغانا قرآن ما دقنتي إذا كدام قرآن ما دقنتها ما هو بقولك خيبادي عاد قولة مركز سكول كره واحد iskoolku fiican yahay arigu fiican yahay arigaad egtaa xageed ka egtaa beerta mise wixii ka baxsan oo markaa iskool kare wax arigaad doonta buurta ka bixisaa maasha allah هدي هلي لهي هذا 5 مليون 5 كن أو دولار بس صاريسه سمعت كده 5 كن أو دولار بس صاريسه عشان بقول هدي أنا هلي له وعوجن 5 سنة بيرتها هذه سنة هاي ده ضوح قبر بحرهم الضوح ضوح قبلهم مرتي برتاجوا برتنا أنا بيري ها أنا بيري فكروا فطن بس أنا بيري مركب ده علم بس مني فكروا وطن عبان بنام الصحراء أبو marka ma aldaad celin siba hadana waxba aad ka awoodi kartaa hadana awoodi kartaa dul maraya gnay waka waanta ilaahay oo noo dib dhaaf waan tuuranaa imika halo ma qadarnayo sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim waxa weeyin waxaanu joognaa mashruucan hodan gobdheere ambase waraabo dareere waxaan cabasho u jeedinaynaa dhammaanba dawladda Soomaaliland madaxweynaha jaaliyadda u dhalatay gobolkan awdal gaar ahaan deegaanada garbadada iyo gobolka oo dhanba waxaan leenahay waxaan uga cabanaynaa iyadoo aan nahay dadkii saddexda sannadood istaba joogay abaaruhu dhaceen nawaaxidii laga qaxootiyay abaaruhu ay ku habsadeen waxa ilaahay noo keenay naxariiso ballaaran oo da'ay waxa ay nagu soo fatahiyeen naxariisihii daadad wax yeeleeyay beeraha meelaha ugu halisaysan ee dhirta iyo nololuhu ay ku yaalaan daadadkaas oo awoodayadii ka batay waxaan walaalaha ugu cabanaynaa inay naga caawiyaan intii tamartooda daadadkaas soo fatahay ee awoodan u laanahay halkan joognaa waxa weeyaan mashruuca hodan gobdheere ama se waraabo dareeray iyo nawaaxidiis waxaan leenahay walaalayaal waad mahadsantihiin iyagoo iminka nala jooga walaalaha iyo qurba joogtihiin qaybo ka midii nala joogaan oo indhaynayaan dhibaatooyinka jira ee mashruucan hodan gobdheere ay indhaynayaan iyo dhibaatooyinka daadku ku hayo iyo meelaha daadadku ay ka furteen iyaga iyo inta kale ee maqanba waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada waxaan uga cabanaynaa ambase ugu baaqaynaa in ay naga siiyaan gacan walaalnimo oo taariikh leh oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkii ay dhaca ay baloorin jiray buurtii iyo gargaaraha hayde gumiraxsan inta dib marayna maanta waxaa waaw nagu hal geer la joogay ee ku ciyaarin heeladana si abad iyo bacdi baa ku hay wal naga qaatay meelna wax marna markaan weynay ceel dartii baan cadaan ka soo dhaanay hada dartii baa ku soo dhantay ma leeyba u noqonay
أنا دور قبسن لي اللي ما كان نقول بركو دور يا هذا واحد نقدر ما عالم تبريب ما هو صح وشيء حكي بنا قبسن دكتور ورقة بالله كمان نقبل ما قبسنا ورقة بالله ما قرن ما كان واحد ما سو سراي تيمada boorka seenaka waxa way walaalahay waxaan u bahanahay ina walaalahay qurbaan dhamaatood afka dowlad badan la gaarsiiyo dadka qaxootiyaasha ma ka soo doortaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا فيصل الجمال وحنا هيقولوا هو أنا كسر عيسى وحنا ده وضع هو أبو رأسي هاي فراح نكرب ضرب على هذا ودول بيرليه وحنا صوبها أبا كبها وحياة الله ما كبها بريس كي تاو كبها ودول أوصي عن هربركيس حيدنا أبو وشقيا هربرنتو وضع كي وضع في طريق لا أبو في عي هاي وده وحنا فقط سنة وضوي كأد وهاك تسوي وحنا بحنا لحق أبو قربا waxaan ku codsanayna dawladda inuu dariiqada aad noogu hagaajiso halka ka soo qaadana Djibouti waa ka soo qaadaa Soomaaliland waan geeyaa inta goor baa la inaga dhaadhiciyaa waxa la dhaadhiciyaa cadaalad badan ka qabnaa markaas waxaan u jecelahay in ama qolada jeekiga la soo yararo waayo adoo imika soo raray ay haddana ilbirsiga ama loo horay haddana daji marka waxaan jecelahay in masaafo loo dhaxaysiiyo ama laga daayo jeekiga waayo waxay isku jiraan masaafada waxay isku jiraan masaafad aan ahayn 15 kilomitir ay isku jiraan seyr iyo caashcado marka masaafadaasi ayaa laba jeer lajiyaa way hadaan xalay soo dhaaf lahayn wada xaso dhan aan soo roog lahayn marka waxaan codsanaynaa in ama qolo jeekiga iyo la soo dhaweeyo ay meel wada ahaadaan balse marbar oo kale marba lagu casuurayaa taraasad wada xodha maraysa seyracna waxa weeyaan waxa seyracna laga casuurayaa caashcadan hadda waa lagu wada hogay gaari waa qalad aad u weyn waxa waxaan ku codsanaa dawladdeeda in ay ka dhigto meel keliya intaan dooranay isbedel badan ayaan dareemay waxyaal fara badan oonan markii hore dhaqdhaqaaq oon jirin baa noo kordhay xisbibax si fiican buu ugu shaqeeyaa degmadiisa waxaa la yidhahdaa cabdi hindi cabdilaahi cilmi muddan baa la yidhahdaa hindi maxamuud muddan faahiyaa la yidhahdaa arrintan maanta waxaan ka fahmay aad iyo aad si fiican baan u fahmay kiniinkan biyo safeeyaha lana siinayo dawadan maxayd waxaan ka dhaansanaa dix baan ka dhaansanaa mararka qaarkeed qasabadu naga go'do markaa dixdaasi biyaheegu nadiif maaha mar daadad baa soo mara dee la doono dadka dharkaaba ku maydhan karaan biyahaan ku ridanaynaa kiniinkan carruur yarar baan haysanaa carruurta yaryarda caafimaadkoogu aad iyo aad noogala shaqaynaya horumarka magaalada guddoomiyaheega aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cabdi hindi cabdilaahi cilmi intuu noo hayo anaga xilka aad iyo aad bay magaalada horumar u gaadhay si fiican markaa maxay tahay dhibaatooyinka dhulkaygana abaaro badani ku dhaceen abaaro badani ku hafsadeen xoolihii ka dhamaadeen xoolo dhaqatadii reer baadiyaha guuri jirtay waxaa xoogaad ka arkaysid ay yihiin halkaa degeen aad iyo aad buu ugu gurmaday si fiican maxay tahay hay'adu aad bay noogu soo xidhaan inta guddoomiyaheegaasi maxay xilka noo hayo markaa dhibaatooyinka aad iyo aad buu nogala caawiyaa walaal aniga aamine aadan jacaale ayaa la yiraahdaa markaas walaala guddoomiyaha aad iyo aad baan guddoomiyo aad iyo aad nin u firfircoon oo dadkiisa iyo dalkiisaba u soo jeeda weeyaan waayo waxa la wixii tabaalo adduunka ka taagan annagoo wallaahi xaaladayadu ay iska liidato iyuu ninkaasi noo qabtay guddoomiyenimada kaasi oo waxaan ku yiri anan dhalinyarta gaar u la shiraya oo odayada gaar u la shiraya oo hooyooyinka gaar u la shiraya oo awlaadda dugsiga iskuulka ka dhigata gaar u la shiraya oo ninna iska qabweynaysiinay ninna afkiisa nin walba wuxuu u baahan yahay aad iyo aad uga raali galin nin walba fadhiga ku raali galinaya markaas walaal wallahi aad iyo aad baan u fiicanahay marka isaga ayaa noo sameeyay nin kale inaanu ku doorsanana haddaanu degmada nahay uma malaynano cindigayagana ma gelinano waayeel caruur maxay day ciroole midnaba uma haysano amba wax de isbedela amba wax de inaanu ninka u yeelano ma jeclin walaalo waxa weeyaan aniga magacayga waxa la yiraahdaa Yusr Ilmi Hande nabadgelyo ku noolahay magaalada Garbada baan ku noolahay
baabuurta Jabuuti iyo kuwa Hargeysa iyo kuwa Boorama tagaya iyo kuwa Gabil tagaya inta wayna dhaxmaraan nabadgelyo ku jiifna nabadgelyo ku noolahay saddex geesood baan meesha ku noolaa aad iyo aad baan dad isku feer ogolnahay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cilmi waxaan ahay gudoomiyaha degmada Garbadadar waxaan halkan fariin ugu gudbinayaa bulshada u dhalatay degmada Garbadadar ee qurbaha ku maqan inay soo dhistaan dalkooga maadaama imika horumarkii loo soo jeestay uu dhismihii socdo oo meeshan ay tahay meel hodan ah beeraha iyo macdanta iyo xoolaha waxaan aad u jecelahay in dadkii dhulkan u dhashay ay dalkooga soo dhistaan meel kastana waxa dhisa dadkii dhulka u dhashay baa dhista waxyaabo badan baa meelahan looga baahan yahay sida darteed waqti badan oo waxaan soo marnay abaara ah alxamdulillah roobab baa bilaamay roobabkii bilaamay darteed waxa jirta maalmahan dambe inuu dhismuhu aad iyo aad u socdo hadhow intii ay oran lahaayeen dhulkii wala naga wada qabsaday ama uu naga buuxsamay war hadday dhowdahay dhulkiina wax ka qabsada oo u soo dadaala waxna ka dhista horumarna ku soo kordhiye intaad magaalada aad deganayd ama aad gudoomiyaha aad u tahay maxaad sileedahay ku soo biirana mise maxaad sileedahay maxaad ka qaban runtii waxyaabo badan waanu ka qabanay ilaahay baa nagu gargaaray waxa kamid ah oo kow ah markii aan magaalada imiday ma lahayn haba yaraatay ee wax biyo ah dadku waxay ka cabi jireen dooxa biyahaas biyo casbi cabi jireen dadka calool xanuun kaliya xanuun waxyaabahaas ku dhici jiray alxamdulillah maanta biyaha ay cabaani waa biyo clear ah oo nadiif ah ciddii diyaar u ah inay xaafadahooga gashatana waanu u gelinaynaa sidaa darteed magaaladu waa magaalo ganacsi waa santar waxa soo mara dhammaan baabuurta u kala gooshta Hargeysa Gabiley Berbera dhammaan intoodaas oo dhan waxay soo maraan waxay santarkay soo maraan waa Garbadadar biyahaasina wax badan ayay noo qabteen waaba kuwan keenaya in dhulkii la dhisto oo ay dadku dib imika bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala magacayga waxa dhahaa Xasan Daahid Warsame waxaan ka tirsanahay wax xumin kamid ahay ururka Ramad la dhaaho regionalka saldhigiisuna Djibouti yahay waxaan keenay maanta degmada Luhaya oo abaar iyo dhibaatooyin kale ay soo gaadheen iyo dad qaxootiyaba ay yimaadeen waxaan keenay raashin ururka la dhaaho Waami amba Anadul Caalamiya maktabka Djibouti amba biirooga Djibouti aan ka soo qaadnay deeq ay noo soo dhiibaan ka soo qaadnay deeqdaasi waxay kooban tahay bariis daqiiq sonkor iyo saliid oo sida imika kulleydii aad kaameraga hadhow lagu qaban doono aad arkaysiinba raashikalka yaala ayaa waxa lagu talagalay dadka ku abaaroobay abaaraha gaar ahaan qaxootiga ee yimiday degmadan Luhaya waa deeq yaro kooban oo ka timid walaalahood ururka Anadul Caalamiya oo na maartay uu soo qaaday ururka Ramad la dhaaho marka waxaan jecelahay kulli dadka dhibaatadooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala baahidooda ka maxay hadaan dhameystira waxaan jecelahay inay ka faa'iideystaan dadkii lagu talagalay oo sida hadhow sawirka aad ka arki doontiin qof amba laba fahmi raashinka yar lagu fariisiin doono oo lagu taswiir doono insha Allah ta'ala marka waxay dadka ku dhaqan magaaladani baa mise degmada oo dhan baad waxaan u qaybisay imikahan raashinku madama uu kooban yahay dadka degmadan Luhaya ku dhaqan inta degan magaalada iyo inta qaxootiga ee timiday oo culays badan magaalada ku haysa baan ugu talagalay raashinka yar ee kooban may dhowr jeer baan keenay markii horeysay maaha mar saddexaad ilaa dhowr saddex jeer hore afar jeer hore waan keenay oo raashin kan ka weyn baan keenay oo dhowr gaariha oo mandiqada oo dhan gobolka oo dhan aan wada gaarsiinay ayaa jiray marka taniitiin ugu horsamayna waa tii maartay tii afraad ban malaya raashinkii afraad inuu yahay filayaa in xaggan keeno waxaan raashinka sidaan ugu talagalay waa raashin dadka tabaaloobay disasterku amba masiibooyinka dabiiciga sida abaaraha kale ay ku dhaceen ee xoolihii ka dhamaadeen ee barakacay ee magaalada soo degay ayaan ugu talagalay raashinkan maaha kullu ugu talagalay dadka magaalada sii deganaa ee ganacsi amba se dan magaalada ku haysta maaha waa dadka abaaroobay ee magaalada yimiday oo waliba caad magaalada culays ku haya saadafteed baan dhig culayska magaalada laga khafiifiyo dadka soo barakacayna ha loo geeyo wixii raashin ay maartay loo helo marka masuuliyiinta dabiiciga ah sida laga baxo waxa weeyaan waa in la isu gurmado
oo takalana waxyaalo joogto ah inta iminka raashin iyo gargaar la bixinayo waxaa kale oo ka fiican in hay-aduhu ay ogaadaan inay qabtaan wax joogto ah oo maaragtay horumar joogto ah in dadka loo sameeyo insha allahu tacaala ayaa kulliba maaragtay aan hay-adaha aan u sheegaynaa wallahi horta waan u mahadnaqaynaa dowladda somaliland iyo dowladda jabuutiba way noo dhib yareeyaan wax alla wixii raashinka ka soo baxaya cashuur lagama qaado facilitation badan baa loo sameeyaa amba dhib yarid badan ayaa loo sameeyaa marka wax dhibaato ahoo dee jidka iyo rafaadka aan hayn oo kale oo naga soo gaadha ma jiro bal waxaa naga soo gaadha gargaar iyo taageero iyo gacansiin iyo howlfudeydin baaba naga soo gaadha dowladda ha noqoto dowladda goboleedka maamul goboleedka Luhaya amba ha noqoto dowladda weyn ee Somaliland ee maaragtay gaar ahaan qodan cashuuraadka ee loo yacdo iyo saylac wax badan bay noo dhib yareeyeen waan u mahadnaqaynaa hay-addu horta waa hay-ad regionaala gobolka oo dhan bay ayay ka sharci garaysan tahay ay ka shaqaysaa cid kasta oo reer Jabuuti ah amba cid kasta oo dibadaha amba cid kasta oo carab ah oo waxaysato oo wax la baxaysa intaba waa la shaqaynaa waxay noo soo dhibaanaa dadka waan keenaa waxaan horta aad ugu mahadnaqayaa qurbo joogta reer Jabuuti amba qurbo joogta dhammaan gobolkan ka tirsan ee dibadda joogta waxaan kaloo u sheegayaa in haddii maaragtay la iska taageersan waayo oo wax la qabsan waayo inay wax badan ayna soconaynin horumarkuna wuxuu ka yimaadaa dowladaha ma waa ururada oo isgacan qabsada iyo dadka oo samaysta mujtamaca madani wax loo yaqaan ama bulshada rayidka amba civil society la dhaho si dadka wixii dowladdu waxaa jira meelo ay ogeyn dowladdu amba ayna gaadhaynin oo dee farahaygu dowladdu ayna gaadhaynin marka dadka waa inay ururada iyo wixii maaragtay bulshada isnidaamisay waa in wax lala qabto oo dadka qurbo joogta gaar ahaan ay ogaadaan oo wuxuu oganaa meesha la dhigayo ayna ka warhayaan